munaasabadan oo mid lagu dabaaldegayay Malinta Nabadda Addunka oo ku beegan 21 December ayaa lagu qabtay beerta nabadda ee magaalada Kismaayo iyadoo munaasabada ay ka soo qayb galeen ururada bulshada rayidka sida haweenka iyo dhalinyarada. munaasabadan oo lagu soo bandhigayay cunaqabateynta ay saartay dowladda Soomaaliya kaasi oo ku aadan duulimaadyada diyaaradaha Kismaayo imaanaya iyo kuwa ka baxa waxayna sheegeen in arintani saameysay isku socodka dadka bulshada kunol deegaanada Jubbaland iyagoo dowladda Soomaaliya baaq u diray in ay ka waantoodo arrimaha lagu dhibaatoonayo shacabka kunol magaalada Kismaayo. qaar ka mid ah gudoomiyaasha xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay arinta ay saameysay bulshada rayidka kunol deegaanada Jubbaland. waxaan mahad ballaaran u celinayaa bulshooyinka Soomaaliyeed ama hablihii iyo dhalinyaradii maanta jiddiga soo geliyay qoraxda fadhiyo hoolanka maaha meelaha lagu siraayo tan kali maaha waa saddex meelood laba meelood kale waa la fadhiyaa saarka ka badan baa fadhido waa maasantii nabadda jaceelka nabadda ay qabtaan waa aragnaa waxaan ku soo gabagabeynayaa dhibaatada xoogga leh lagu sameeyay in diyaaradaha la soo mariyo xamar maanta cid walbo oo magaalada Kismaayo degan way ogtahay xaafadii annaga wakiil baa u nahay dhibaatooyinka badan ka dhacay waa ognahay dhibaatada ugu badan ee ka jirto waxa weeye dad dhaawaca oo la waayay ama dad xanuunsan laga soo qaaday dhoobay oo la waayay Kismaayo in la keeno hata laga soo gaarsiiyo la geeyay xamar haddana inta la keeno waa aragnay waxa weeye dhibta aan qabno cidii ugu tala gashay maanta nabad baan ku jirnaa nabadaan ku jirnaa waa nabad lanaanteeda leh oo fiicnaanteeda leh wax dhibna kama jiro jubbada hoose. waxaan ka hadlaynaa shalaf maqlay wasiir Omar oo la ka hadlay hawada ayaan amnigeeda sugeynaa hawada amnigeeda hadii waa amniga Jubbaland waa nabad hawada waa nabad dhulku waa nabad waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka iyo wasiir Omar dadka shacabka Jubbaland aysan dhibaato ninkii dowladda ka soo duulay muqdisho tagay haddana dib ugu soo noqday Kismaayo ugu soo noqday annaga dad loogu jirto waxaan u maleeynaa cunuga isagu ilmahooda ma raacayaan Omar iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo wasiiradaha waxaan ka codsanayaa dhibaatada laga daayaan cunaqabateynta laga qaadaan adduunkan waxaan ka codsanayaa Jubbaland nabad baa ka jirta nabadda ka jirta in lagu taageero. Cabdiqaadir Sharay oo ka mid ah siyaasiyiinta Jubbaland ayaa hambaliyo ku aadan Maalinta Nabadda Addunka u diray shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Jubbaland. waxaan maanta la dabaaldegaynay shacabweynaha reer Jubbaland munaasabada ku aadan Maalinta Nabadda Addunka inagoo baryahanba wadnay in ay shacabka reer Jubbaland ay muujiyaan dareenkooda ku aadan sidii ay u ilaalin lahaayeen nabadii qiimaha badan ku baxday ee reer Jubbaland. marka hore waxaan u hambalyeynaa shacabka reer Jubbaland gaar ahaan iyo guud ahaan shacabweynaha Soomaaliyeed waxa aan halkan ka leeyahay in ay runtii ogaadaan qiimaha nabaddu ay leedahay in nabad la'aan ee nolol la'aan ay tahay. Cabdiqaadir Sharay ayaa waxa si qoto dheer uga hadlay xayraadii lagu soo rogay maamulka Jubbaland isagoona hadalkiisa sii watay waxaana uu sheegay in beesha caalamka ay soo fargeliso khilaafka u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. cunaqabateyntii la saaray shacabka masaakiinta ee reer Jubbaland waxa nasiib darro ah oo runtii damiirka bani aadamkan uu aqbalayeen in maanta wasiirkii gaadiidka cirka ee dhulka oo ahaa wasiir reer Jubbaland in uu maanta si cad warbaahinta aga sheego in amniga qaranka laga sugayo hawada Jubbaland. waxa isweydiin leh amnigii laga sugi waayay wadada Makka al-Mukarrama amnigii laga sugi waayay villa Soomaaliya amnigii laga sugi waayay xafiiskii gobolka Banaadir ee looga shiray ammaanka gobolka Banaadir inuu dhaho maanta waxaan ka sugaynaa hawada Jubbaland waa arrin runtii damiirka bani aadamku aqbalaynin laga xishoodo oo maanta qof damiir leh aysan ahayn wax uu ku hadlaayo. waxaan u sheegaynaa caalamka in cunaqabateyntan aan sharciga ahayn oo runtii gaboodfal shacab ah oo jariimo bani aadamnimo ah oo loo geystay shacabweynahan masaakiinta ah oo loo diiday shacabkii masaakiin maanta islaantii xanuunsaneed ee Dhoble joogta ama odaygii xanuunsanay Dhoble joogta markii la dhaho muqdisho markaa tagtay Kismaayo ma isku daway caruurtii dhalinyaradii waxbarasho aadaysay in maanta la dhaho Yusuf telefishinka codka bariga Afrika magaalada Kismaayo.